Soomaaliday wax laydin carbinayaa laydin caawinayaa cilmi inaydin barataan oydaan noqon xawaaliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. kusoo dhawaada mar kale iyo barbaarsama channel oo had iyo jeer aan idinka soo baahiyo barnaamijyada ku saabsan barbaarinta iyo tarbiyadda wanaagsan ee caruurta. haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad uga mid noqoto waalidiinta iyo asxaabta nagu xidhan. haddii aad hore noola joogtay gambaleelka furo si aad uga warhayso hadba mawduuca ama barnaamijka cusub ee aan soo geliyo. mahadsanid. markan iyo mawduuceena waxa aynu kusoo qaadan doonaa su-aal igu soo noqnoqotay, taas oo noqonaysa caruurta mar walba daalan ama jirkooda iyo wejigooda laga dareemaya inay yihiin qaar daalan. waxaa jira caruur inta badan aad arkayso jirkooda ama dushoodaba uu ka muuqdo daal badan, iyada oo haddana waalidku ku dadaalayo wax badan uu siiyo. taas ayaa waalid badan ku keentaa walaac, iyaga oo haba yaraatee aan fahansanayn sababta ku keenaysa ilmahooda daalka, ama uu u yahay mid mar walba daalan haddii uu yaro ciyaaro, haddii in yar la socdo, iyo jirkiisa iyo dushiisaba uu daal ka muuqdo. haddaba markan waxa aan kula wadaagayaa ama aynu ka jawaabaynaa su-aashaasi oo aynu ku sharaxaynaa mawduuceennan waxa keeni karaa inuu ilmuhu noqdo mid mar walba daalan. hase ahaatee waxaa jira calaamado dhinac socda marka uu ilmuhu yahay mid mar walba daalan, kuwaasi oo loo baahan yahay inuu waalidku eego ilmihiisa daalku ka muuqdo inuu leeyahay sida oo kale calaamadahan aan tilmaami doono. calaamadahaasi waxaa ka mid ah ilmaha oo jirkiisu noqdo mid qallalan haddii si walba kareem ama saliid loo mariyo. sida oo kale timihiisa oo noqdo timo cawlan oo aan duxdi waxba ka tarahayn dusha laga mariyo. cidiyaha ayaa iyagana la dareemaa in ay noqdaan qaar aad u qallalan ama qallayl ka muuqdo. waxa kale oo ka mid a calaamadahani ilmaha yar ee daalan sida oo kale lagu arko inuu yahay ilmo fahankiisu yaraado amaba attention badan aan lahayn oo uu attentionkiisu hoos u dhaco. waxa kale oo la arkaa ilmahaasi inuu markasta leeyahay cillad caloosha ah, sida inuu markasta calooshu taagan tahay oo kale. cilladaasi caloosha waxaa kaloo ku keentaa mararka qaar inuu matago amaba inuu shubmo. haddaba calaamadahani kala duwan haddii aad ku aragto ilmahaaga adiga oo weliba arkayay markii horena inuu yahay mid daalan ama uu daal badani ka muuqdo, waxa aan kuu sheegayaa ama culimada caafimaadku ay ku talinayaan, inkastoo ay jiraan waxyaabo kale oo ku keeni kara ilmaha daal, sida iyada oo aanu hurdo ku filan seexanin, isaga oo niyad jabsan, amaba wax arrin kale iyo duruuf kale ay la soo kulantay iyo waxyaabo la mid ah. isku soo wada duub oo culimada caafimaadku waxa ay sheegayaan in ilmahani uu korkiisa iyo jirkiisa iyo naftiisaba daalka badani ka muuqdo ay ka maqan tahay ama aad ugu yar tahay maadada ironta. cuntooyinka kala duwan ee laga helo hore ayaan idinla wadaagay, waxa aanad ka eegi kartaan fideoiska hore ee aan soo geliyey haddii aad nagu cusub tahay. waxa kale oo barnaamijkeennan taladiisu noqonaysaa in markiiba waalid ahaan aad ilmahaaga dhakhtar geyso, adiga oo u sheegaya inuu baadho amaba eego in ay irontiisu dhacsan tahay iyo in kale. dhakhtarka ayaa markaasi kuu soo qoraya
ama kuu sheegaya inaad ilmahaaga usoo iibin karto ironta iyada oo la iibsan karo mararka qaar iyada oo wax dhakhtar ay soo qorin. haddana waxaa muhiim ah in mar walba qofku dadka caafimaadka uga khibradda badan ee dhakhaatiirta ah ee ka agdhow uu la tashado, maadaama waxaan uu siinayo ay ilmo yar u yahay. sidaas darteed waxa aan rajaynayaa in aad ka faa'iidaysateen ama ka faa'idi doontaan barnaamijkan, kana heli doontaan su-aashii aad isweydiinayseen ee ahayd ilmahaygu mar walba muxuu u daalan yahay ama u yahay mid daal ka muuqdo. aad jawaabteedii ka heli kartaan. haddii aad ka heshay barnaamijkeennan like saar, siina sheer gare si uu u gaadho waalidiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto. tan iyo kulanti dambe waxa aan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.